wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay liisanka wadista gaadiidka ee lafta iyo cashuur sanadeedkiisa. War-saxaafadeedkan oo nuqul ka mid soo gaadhay Bulsha TV ayaa u dhignaa sidan: Hargeysa, bisha 5/16/2022, wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay bulshada la wadaagaysaa war-saxaafadeedkan ay ku faahfaahinayso liisanka wadista gaadiidka ee lafta iyo cashuur sanadeedkiisa, iyadoo lagu guda jiro ololaha ururinta cashuur sanadeedka 2022. ayaa waxay wasaaradda horumarinta maaliyaddu halkan bulshada ugu faahfaahinaysaa in cashuuraha iyo ajuurooyinka ku waajibay cashuur sanadeedka liisanka wadista gaadiidka waaweyn waa 120,233 oo shilin. Wadarta cashuurta iyo ajuurada liisanku waa 360,697 oo shilin. Qaadashada liisanka cusub ee wadista gaadiidka yaryar. Ajuurada diiwaangelinta liisanka lafta ahi waa 180,346 oo shilin. Cashuur sanadeedka liisanka wadista gaadiidka yaryar waa 69,186 oo shilin. Wadarta cashuurta iyo ajuurada liisanku waa 276,534 oo shilin. Marka uu qofku qaato liisanka wadista gaadiidka sida kor ku xusan, waxa darawalka looga baahan yahay inuu liisankiisa si sanadla u cashuurto ilaa inta uu dhacayo lafta liisanku oo cimrigeedu yahay 5 sano. Haddaba cashuurta liisanka sanadlaha ee gaadiidka waa sida hoos ku xusan. Cashuurta sanadlaha ee liisanka wadista gaadiidka waaweyn waa 120,233 oo shilin. Cashuurta sanadlaha ee liisanka wadista gaadiidka yaryar waa 69,186 oo shilin, iyadoo sababta loo kala qaaday cimriga liisanka iyo cashuur sanadeedkiisu ay tahay tii loo turayo bulshada oo ay keeni karto culays dhaqaale, isla markaana la waafajinayo xeerka cashuuraha iyo maaliyadda dalka. Ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri: cashuur bixiye, waxaanu kugu boorinaynaa inaad u bixiso cashuurta si hagar la'aan oo ay muwaadinimo ku dheehan tahay, ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Shaafici Shaaciye, Bulsha TV, Hargeysa.